السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا qaaliga hay walaalahayga soo dhawaada meel kasta ka joogtaan dunida daafaheeda asxaabay waxaan halkan caawa ku sameysanaynaa qado fudud oo aan ka qaadanayn 10 daqiiqo oo haddaad degdegsan tahay dhaqso ah u sameysanaysid iyo cabitaan sahlan oo u fiican caafimaadka hadaba ila socdo asxaabta qaaliga ugu horeyntii fiidiyoga like dheh haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh say kuu soo gaaraan wax kasta aan soo dhigno siina sheer gareeya fiidiyoga si ay uga faa'iidaan qeyrkiin halkan waxaan ku haystaa 3 xabo liin dhanaan aan soo diiray waxaan ku darayaa 1 litir oo biyo barafna waan ku darayaa haddii eebo ogolaado waxaan kaloo ku darayaa 2 qaado oo yaryar oo caano dhay ah sidoo kale caanaha dhayda iyo barafku macaan ay ka dhigayaan sokor ah ku darayaa waxaa kasii caafimaad badan waxaa loo yaqaan malabka laakiin ani hadda sokor aan ku daray waan soo miiray kana casiirkii oo abriyo maasha Allah macaan ah asxaabi cabitaankan aad ayuu ugu fiican yahay caafimaadka waxyaabo hadaa cunto culus cuntidoo kale uu ku fiican yahay liin dhanaantu aad iyo aad ayuu caafimaadka ugu fiicantahay xataa biyaha cabaysid hadaa ku dhex ridid ama ku tuujisid aad ayay u fiican tahay oo qof walba uu garanaya liin dhanaanta caafimaadka wanaagsan asxaabay qadadeena waxay ka kooban tahay halkan waxaan ku haystaa kaarood aan soo hoolhoolay iyo 3 nooc oo kamid ah barbarooni mid cagaar mid jaalle mid gaduud hal mid hadaa haysata isticmaalaysa waxaan kaloo halkan ku haystaa 2 xabo basal aan si yar u soo jarjaray waliba basarta cad baa fiican mid gaduudan haystaa nus kiilo hilib shiidan ah hadaba asxaabay ila socdo waxaan kaloo haystaa yaanyo miro aan soo diiray soona jarjaray si yar u soo jarjaray asxaabay cuntadan waa cunto sahla aad ayay u macaan tahay waxayna ku fiican tahay rootiga in lagu cuno ani laakiin baastaan ku dar doona insha Allah birta aad ay u kulaatay wax saliid ah kuma shubin birta waxaa la rabaa inay kulushahay sababtoo ah hilibka ma rabno inuu biyo dhalo sidaa darteed birta aad ay u kulushahay saliid iyo waxba kuma darin iyo subag midna sababtoo ah hilibka shiidan asaga ayaa wuxuu leeyahay dufan oo marka dadka ay shiidayaan meelo oo waxay ku daraan dufan leh sidaa darteed kuma darayno wax saliid ah markuu uu hilibka xoogaa uu soo qalalo oosan oo kale uu noqdo ayaan waxaan ku darinaa hadda wax dhacaana ma lahan hilibka uu soo qalalay waayo birta aad ay u kululeed basashii ayaan ku dareynaa asxaabay runtii cunto fudud waaye maasha Allah aad waxay ugu macaan tahay waliba hadaa rootiga oo midka hamburgerka la galiyo ku shubti aad sidii sandwichkii u dhexgelisid oo cheese korka ka saartid oo foornada gelisid aad ayuu macaan u yahay ani laakiin hadda baasto ayaan ku dari doonaa haddii eebba ii ogolaado ila socdo walaalahayga qaaliga fiidiyoga like dhahaya basashii iyo hilibkii waan isku soo khaleynay waxaan kaloo ku dareynaa asxaabta qaaliga ah kaaroodka mid kasta qudaar kasta markaa ku dartid waa inaad si fiican ugu walaaqdid oo u dhexgelisid si uu hilibka u dhexgalo oo aad u heshid waxa dhadhankoodii oo macaan asxaabta qaaliga ah wax yar ayaan isdhexgelinaynaa marka ay isdhexgalaan haddii eebba ogolaado waxaan sameynaynaa waxaan ku dareynaa haddana waxa loo yaqaano barbarooniga haddaad barbarooniga gaduudan haysan inaad ku dartid important ma ahan kan cagaarka hadaa haysataa ku daray haddaad midna haysan dhib ma lahan xataa 3dan barbarooni ayaan ku dareynaa wixii aadan markaa aan ku oolin inaad ku dartid shardi ma ahan tan kale waxaa kale oo lagu daraa waxa loo yaqaano mastarda waxa waaye midda biitsada lagu daro oo jaalaha ah laakiin ani kuma daraayo oo ma jecli marka rootiga ku sameynaysid ayaa lagu daraa laakiin anaga hadda baasto ayaan ku sameynaynaa asxaabay marka qudaar kasta markaa ku dartid barbarooniga markaan ku darno iyo markaan ku darnay kaaroodka waa dhexgelinay haddana waxaan ku dareynaa waxa loo yaqaano yaanyada si yaryar ayaan usoo jarjarnay waana soo diirnay oo iyadoo galkeeda qabto maana ku darin waayo hilibku waa hilib oo shiidan
hilibka aan sameysanayo waxa waaye waa hilib lo. Hadduu yahay hilib geel waxaa laga yaabaa in ka badan kan lo-da bislaado inuu qaato, marka biseylka ayaa u badinaysaa. waxaan kaloo ku dareynaa asxaabe waxa loo yaqaano hal qaado oo ah in yaraan daboolaya, kadib saan ayuu noqday, wax dhacaana ma lahan oo wuu isku soo dalacmay wixii dhan, qudaartii iyo hilibkii. waxaan ku darayaa 2 xabo oo yaryar oo toon ah oo aan soo tumay, ama soo shiid ama soo tun oo toona ku darayaa. waxaan kaloo ku darayaa hal qaado, halkan waxaan ku haystaa 4 waxyaabood, xawaajib iyo milix, filfil shiidan. sidoo kale waxaad ku darsan kartaa barbecue haddii aad u baahan tahay, ayadana waxa waaye waa wax ikhtiyaariyo inaad ku dartid, shardi ma ahan. milaxa iyo filfisha kaliya ayaaba hilibka, oo markuu hilib shiidan yahay labadaas ayaa ku filan. ani laakiin hadda xawaajiyaan ku siyaadiyey. barbecue hadaa u baahan tahay adi oo jeceshay waa ku dareysaa. asxaabe waxaan kaloo ku dareynaa hal qaado oo soya sauce. soya sauce-ku wuxuu siinayaa dhadhan macaan ayuu siinayaa oo juicina uu ka dhigayaa. waxa ugu muhiimsan aan ku dareyno waxaa weeye 5 malgacdood oo waaweyn iyo ka badan oo kajab ah ayaa ku daray. dhalo yar oo kajab ah aa ku daray ani hadda. kajabka ayaa cuntadan wuxuu ka dhigaa macaan, uu ka dhigayaa. kajabka hadaa rabtid soya sauce-ka waa iska dhaafi kartaa, laakiin kajabka ku dari kartaa. waxaan ka wadaa kajabka oo u siyaadinaya, yani ugu yaraan 5 qaado oo waaweyn aa ku daraysaa oo qaadada bariidka lagu cunaa. hadda wax walba waan ku darnay, diyaar buu yahay. waxaan sameynaynaa asxaabe, waxaan ku shubaynaa biyo kulul, koob weyn oo biyo kulul ah ayaa ku shubaysaa, waana daboolay. wuxuu qaadanaa 20 daqiiqo 15 daqiiqo camal ayuu qaadanayaa. biyaha aa ku dareysid asxaabi waa inay yihiin biyo karkaraya, yani katalka ama karliba ku kululeyne waa ku darey. haddii aad aragtid inuu biyo kale u baahan yahay waa ku darey. ani hadda waxaan ku darayaa biyo aada u kulul oon dabka kasoo qaaday, sidaa daraadeed waa dabooley ugu badnaan 20 daqiiqo. ani hadda 15 daqiiqo ii saarnaa wuu ii bislaaday. hilibka shiidan oo aad haysatid wuxuu ku xiran yahay hadduu hilib geel yahay asxaabe wax badan waa u badinay waqtiga. asxaabe videoga like dhahay, sii share gareeya, subscribe channelka hadaa ku cusub tahayna. cuntadii way noo soo bislaatay asxaabta qaaliga. baastadii waa tana, maraqii oo diyaar ah oo maraq aada u macaan ah. waxaan rajeynayaa inaad tijaabisaan oo aad commentiga iigu dhaaftaan wixii aad kala kulanteen. runtii aada u idiin cajabin doonaa biidni raxmaan. halkaana waxaan ku haysanaa salar oo ah ka kooban waxaa loo yaqaano salar iyo baastadii iyo hilibkii iyo qudaartii oo diyaara, cabitaankii liin dhanaantaha. asxaabta qaaliga hey, intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.